السلام عليكم. اوكي اوكي وحيد اوكي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are with the mother of the victim who was assassinated and stolen by his organist by Dr. West Hospital. Was buried, and as you see, inshallah, donating here today for the mother of the victim, $5,000, inshallah, to share with her and the family the pain that they have on behalf of Masjid Al-Quran والسنة and Islamic Society of Ohio. اليوم نحن مع الولد المقتول الذي قتل واغتيل ثم سرقت أعضاؤه. إن شاء الله اليوم نتبرع $5,000 إن شاء الله لنشارك معهم الأحزان إن شاء الله تبارك وتعالى. waxaan la joognaa maanta hooyadii dhashay wiilkii la qashay ee lagu qashay magaalada Columbus ee gobolkaasi Ohio. insha Allah taala waxaan idinla wadaagi doonaa waraysi hooyooyinka kale ee gabdhihii Soomaaliyeed ayaa halkan jooga. insha Allah taala waxaan guddoonsiin doonaa hooyada insha Allah taala $5,000 oo dollarka Mareykanka ah oo anigoo matala Masjid Al-Quran والسنة and Islamic Society of Ohio. إن شاء الله تعالى ولا ليال حرجيني إذن كنا إن تصوك هالمين دونتان هويدا إن تصوك هالمين دونتان دون كان وحير ويا وحمان تكون هويو بريت أذا يكون عيان أذا يكون عكران قفل يكون عكران مركا إن وحلينا بهاي دين تنصوحي نفرتي إن أكل ما إنه قفك لقد إنتو إن نتعسينه ما إن وحان على بريغة يصبت يلقفك الله صفريستو أسجي مارتي عليس السعر إن ولا ليال إن هذا إن شاء الله تعالى وحن بلابد أن ورئيسي الله يلانهين هو يدا إياه قبلها الصوماليات وهالكان شوقة وآت مشرف بدر حقيقة وقبله وحكا آسي هو ينكي وحكا آسي ويلكا إن مركا إن شاء الله تعالى إن ولا ليال ماشان رجع الصومالية دلكي إذن كان سوق بي إذن كان قرعن بضي إذن كان هو كان سلعي إذن كان دمر كي ضيعي إذن كان علمية عرورتي ضيعي حبسيده كبوحان دروغي كدرجين درقيده يالان وقاويين wax kasto laga sheegi kara laakiin hadii la ku waxa kan mas'uul ka ah dal iyo dibadba ragga Soomaaliyeed ceebta oo dhan waxay u taalaa ragga Soomaaliyeed fadlan waxaan rajaynayaa inaad share gareyn doontaan kulligiin oo aad gaarsiin doontaan sidoo kale dadka cajaladaha jarjarta fasax uma haysataan cajaladan inaad xadaan hadii la gudmaayo ama Facebook ama YouTube ka meel lacag laga sameeyo iyo meel adduun laga sameeyo ma aha cajaladaha kan inaad jarjartaan permission uma haysataan qofkii qaatana waa looga daba tagayaa oo lagu dacwoonaya waligay anu xoolo kama qaadan sida Ilaahay iga sareeyo YouTube na kama qaadan Facebook ma kama qaadan wallahi billahi tallahi hadana kama rabo waxaan u sameeynaa wax kana waa Ilaahay dartiis Ilaahayna ikhlaas anagu arsaaqo daacadnimo ha nooga dhigo kulligiin marka share gareeya oo hooyadan Soomaaliyeed oo ilmeynaysa iyo gabdhahan Soomaaliyeed dumarkan Soomaaliyeed kulligood halkan waa ilmeynahayeen waxa iga soo wacday hooyo markaan ka soo galay xuduudda dalkaasi Mexico anoo joogo gobolkaasi California ayay soo wacday ayada gabar baa soo wacay si degdega ama haleela ama dhaqsa ayaan tigid u goostay marka maalintii arbacadaan goostay waxay ahayd maalintii khamiista inaan soo kaco diyaaradii baa 12kii iyo xoogaa markay ahayd iga soo tagtay hadii la gudmaayo diyaaradii markay iga soo tagtay walaalayaal barakallahu fiikum diyaaradii ma noqon 12kii duhurnimo ayay iga tagtay laakiin 10:30 PM habeenkii baan ka dhigtay inaan soo baxo habeenkii oo dhan bay la soo guureynaysay 9:30
maalintii jimcaha ayaan halkan soo galay magaalada Columbus gobolka Adilay Kudmaayo WhatsApp-ka nambaradii faraha badnaa oo isoo wacayay nambarada fara badan oo isoo wacay awgood waxaa dhacday barakallahu fiikum hooyo nambarkeeda ayaa ka qarsoomay iguma soo celin xalayto ayaan marka wacay markay social media hooyo ay ku jirtay 2 saac ka hor baan wacay sababta aan wacayna waxay inaan u imaado markaan arkay wiilkii oo la aasay hooyana waxaan rabay inaan la wadaago barnaamij ah oo aan leeyahay yaanan la aasin wiilka la aasin sababtoo ah haddii la qashay wiilkan waxaan xaq u leenahay in la baaritaan la sameeyo marka waxaasoo dhan waa khalad dhacay weeye wiilka in la aasay marka anagu cid gooniya isma eedeynayna inaan is eedeynana waa khalad culimadu waa fiican yihiin jaaliyadu waa fiican tahay dumarku waa fiican yihiin hooyooyinku waa fiican yihiin kulligeen waa fiicannahay Soomaali waa fiican tahay kaliya waxa way maanta see xeega loo xigtaa ilkan u nabad galaan see hooyo loogu gargaara marka qof kasta oo Soomaaliyeed oo damiir leh waxaan ka codsanayaa horta hooyo in la soo qaboojiyo oo ayada waxaad u soo diri kartaan aad toos ugu soo dirtaan numberka halkaas ku qoran waxa iskale Shaamay Cabdi oo gabadhaas Soomaaliyeed oo dariskeeda oo ilintu ka dhamaatay gabdhihii shalay wax ka aasay hooyooyinka ilmeynayay waa kuwana hooyooyinka ilmeynayay waa kuwana hooyooyinka ilmeynayay oo Soomaaliyeed oo ilaa hadda kaligood ah hadii ay kudmo gurigii aan kaligood ugu imid hadii ay kudmaayo laakiin ilaa 100,000 oo qof oo Soomaaliyeed ayaa joogta magaalada Mareykanna waxa joogta ilaa dad ku dhow 1 milyan oo qof Europe waa joogan Australia waa joogan Soomaali waa la joogaa Soomaali oo dhan hooyo way kula jirtaa laakiin inaga Soomaali waxba inaga khaldan waxba inaga dayacan waana inaan isa saxno marka waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka hooyo ayaan ma ku soo dhaweynay hooyo ayaan soo dhawow waxaan leenahay marka hore aniga iyo Soomaali way ma kula qaybsanaynaa murugta waxaan ku leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman faltasbir wal tahtasib horta hooyo horta magacaaga ii sheeg magacaaga ii sheeg magaca ayaa see u isbeelisaa horta sug hooyo $5,000 saa ujeedaan waxaan guddoonsiinayaa hooyo $5,000 waxaana guddoonsiinaya masjid al-Qur'aan wa sunna sababta aan u guddoonsiinayn waxa weeyaan waxa laga yaabaa masaajidkeena $8,000 hadda ay ku hartay ilaa 30-40 kun oo ku jirtay Soomaali baanan ku soo dhameeyay hadii laakiin dad dhibban baan ku soo dhameeyay walaalayaal lacagta marka masaajidyada dadkan baa iska leh lacagta masaajidyada yaa iska leh dadkan baa iska leh anu meelan lacag ku goro iyo aan ku goro oo masaajidada xataa waa la ii diiday inaan maarto Soomaalidu inaan aan tago oo hadii ay ku idmaayo dadkaan kale aan uga helayo laakiin masaajidka waa furayna insha Allah wuxuu noqon doonaa masaajidka masaakiinta looga helayo masaajidka armalada looga helayo masaajidka dadka la qasho looga helayo insha Allah ta'ala masaajidka kuwa gaajaysan kuwa la xiro kuwa caruurta laga qaato looga helayo kuwa dhibban kuwa rafaasan kuwan masaajid u helayo insha Allah ta'ala buu noqon doonaa insha Allah ta'ala magac hooyo say u qortay waa kaasa idinkuna insha Allah ta'ala ayaan qortay ayaan Ismaaciil ayaan $5,000 donating for the mother of the victim. For the mother of the victim. ما أنت بشو أنت؟
ولا ليال شاقي واكنا ولا شيء قبلنا زيلك يكاش أبكى لعقت لو قصة دريه حتى مساعد كمان أدقين وقبلنا هالكا فديدا ودرس كذا والصوماليات تد كان قبيل اسمه كينين تد كان حسوك أنت لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اسكو قبيل ما تد كان هالكان شو ضد صوماليات صومالي وينه وحسوك أنت ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله قبلنا واحد هشامي عبدي وقبلنا التليفون ككاش أبكى يزيلك إسكاله waxaan rabay marka hore inaan ku qorno gabadhan xamdi jaamac laakiin xogaa yani bangiga inay tagto way oo ay saxdo insha Allah taala marka ka masjidkana maana isticmaalin waxaan isticmaalnay marka si lacagtaasi ay u noqoto insha Allah taala lacag toos ugu dhacda dadkan dhibanayaalka ah waa shaamay cabdi waa taas idin hor fadhida walaal teleefankaaga sheeg 614-804-7361 ku celi 614-804-7361 numberkii wakaasaa 614-804-7361 saasoo maa كاش أبكا يزيلك لبا نمبر كاس هذا وصل دريسان هويا أيان محمد إسماعيل سما حوالة ده واحد وصل دريسان مقالة كولومبوس ومقالة كولومبوس واتنا مقالة كولومبوس واتنا هويا دي ويل كده لقى شيء مقالة كولومبوس ما عاقش هوي أيان محمد إسماعيل أيان محمد إسماعيل وحد جنتي مقالة كولومبوس قبل كوهايو نمبر كاغانا الشيخ سي حوالة ده 614-772-6304 اوكي نمبر كيدنا وكاس لكن وحن عدسانينا فضلا صوعتان اسكا صوعوهيو وحبا متريس كليد قفكي صوعيا وانو صوعاهويا انتاسان كو سو دراي انتاسان كو سو تلغلاي انتاس وانت هويا لوgu qaboojinayo oo inaad soo qaboojisaan hooyo wiilkeedii la qashay oo ilmihiisii iyo urku jirkiisii banaanka la soo dhigay halkan ujeedadu ma ahan in wixii raggu ay qaban lahaayeen aan halkan ku qabanayno midda taas anigu aan ka codsan waxa hooyo in la qaboojiyo oo qofka victimka ama laga dhintay in la wadaago murugta hadii la ku idmaayo horta hadalkaaga hadal inta tagin waxaan leeyahay salaamu calaykum muslimiinta meel kasta joogtiin waa dhibanahay Soomaali hadaan nahay hooy way dhiban tahay meel kastaan ku ooyna waa waxaysman ilaahay ha aan ka cabsano aan hal meel aan isku wada imaano aan maxay ahayd tashano saan ma fiicno adeeg ku dhici kartaa sida aanay igu dhici kartaa waxay qof kasta ku dhici kartaa Soomaaliyaan nahay aan maxay ahayd noqono dad oo iska warhay isku xiran aan noqono صح marka intaasaan fariintaasaan maskiintaana hala soo caabiyo waa ayadoo beerkeedii ay arkaysaa la leeyahay macnaha mala duugi kara isaan iyo ma aha waxa waay meed waa la duugaa oo muslanaa sheeganaa meed wuxuu ahaada waa inaa la duugaa inaan la dhihin masaajid macnaha inaa la dhihin laakiin wala laakiin haddii la qasho waxaan xaq u leenahay inaan la aasin la baaro laakiin waan degdegnay xogaa أنا أي way sugtay 12 beri dhan ay haysatay inta ay qarsadeen marka ma codsanay in la baaro oo la baaro oo la yes waa la codsaday waana laga soo daahay adigana ma joogin meesha marka meedkiya nala keena waa duwan laakiin in la baartaa in lawyer in la baarto la baaro la ka fiicneed 20 beri ما يتسكيل وقرعن أبى تنقع بري مركا ما تشرين مياه الله يرأي ضد النص حري رأيه الله يرك 4 دي بالوتر 4 هذا هاي 4 انت هورا لكن لما اوكي واوصي من ولا شيء مركا دينعي تبرعاتك الصومالي محل ضاي هو يدان صوماليا مسكين تاني تو waxa waaye ayada beer kada shaqshaqanaha la soo waxaan ku qaboojino ama waxa aan ku tari karno aan ku tarno aan iska can qabano intaas iskaalmaysanno dalkeeni maxaa leedahay qurbaha waa lagu rafaaday
waxaan leeyahay dadka siyaasiyiinta willigayga waa jeclahay waana jeclahay wadankayga dadka siyaad bare waxa ay waxdooda ku soo koray wallahi qaraxa dhacay kana dhacay siyaasiyiin isqabanaysa oo ayaga isku jeeda wallahi waa ooya maxaa ooya meeshan qurba anaga miskaleeynin dadaa dhistay dadaa iskale kuxootiyaan ku nahay ilaahay ka cabsado wadankaas ka dhaafa qabiilka naga daayo oo quranka naga daayo waa ku dhibanahay dibadna waa ku dhibanahay dalkiina waa ku dhibanahay warfaadaan ku jirnaa ilaahay ka cabsada saan micnaha noo dhaama waa dhibtoonay intaasaan leeyahay muslimiinta iyo dadka siyaasiyiinta صح noo dhaama inkaarteen waaba idinku dhacday marka dhibka naga daaya ladii dhibka naga daaya yes dhibka Yeah. naga daaya waa dhibanahay $5,000 wataasa walaalayaal hooyo ayaan ismaaciil ayaa la guddoonsiiyey wataas $5,000 wataas $5,000 walaalayaal walaal qaybta hoose ka jar jeega qaybta hoose ka jar dabcan seer lacag way dhamaanay laakiin qiimo ma leh qiimo ma leh waa wataas waxaan u siinaynaa inaad ku dayataan masaajidyada cid walba ayaa laynka rabaa walaalayaal wataa hooyo waa guddoontay $5,000 ummadda soomaaliyeeday waa masjid alqur'aan wasunna dadkii soomaaliyeed ee lacagtaas ka qayb qaatay bixinteeda waa idin abaal naqaynaa jazaakumullahu khayran cid kasta oo muslimiina oo ka qayb qaadatay wataas lacagaha masaajidyada yaalla masaajidyadu ma lahan masaakiintaa leh fuqaradaa leh dadka la qashay baa leh kuwa carruurtooda la qaatay baa leh agoontaa leh musaafirkaa leh waxa iskale haddii ay ku idmahayo kuwa xirxiran baa leh kuwa dariiqyada yaallo daroogada ka dhargay baa iska leh malihid wadaadow mushaar ka qaado hooyadan oo kalaa iska leh sidoo kale dadka jaaliyadaha jooga khayr allah idin siiyo idinkuna waxa weeyaan sidoo kale magaca Soomaaliyeed weeyaan walaalayaal wax ku qabta khayr allah idin siiyo kulligiin markaan saa idin leeyahay waa idin ammaanaynaa inaad wax hagrateen u malayn maayo waxbaad qabataan khayr baad qabataan wanaag baad haysaan idinkuna midooba laakiin wax qabta oo ka baxa maxaad leedahay marka walaalay midooba waa si dabcan seer midooba aan noqono hal ilaahay ka cabsado qabiilka naga daaya miskiintaana soo caabiya laakiin waxaan ku daraa lacag way dhamaanay aday kugu soo waxaysmay ay kugu soo noqonaysaa maxay ahayd aan noqono dad isku xiran aan noqono oon iskaalmeeya oo wadankoodana maxay ahayd ka fikira oo macna wanaagooda ka sheekeeya ha noqono wax zero ka sheekeeyna dadka youtube-ka zero ha ka sheekeen maalinta aan la weydiina zero ha ka sheekeen oo wadanka ha baabi'inina wadanka wax ka jira male wadanka waa fiican yahay waxaad wadanka qasaaya siyaasiyiin shalay bartay inuu dadka cuno haddana maanta raba qurbii waa lagu jabay waa ku dhibanahay ilaahay ka cabsada waa ku qurbii waa ku jabnay waana ku jabnay waa sida maamadan oo kaleeto wiilkeeda inta la dilay la dhahay kaalimeedkaaga markay tagtaan oo ninkan mar horaan ugu dambeysay ay hor ii gadaal u socotay ilaa 20 la gaarsiiyay marka dambana ugu dambeysay waxay aatay meedkii oo kaliya beerkii adduunya dhan laga baxsaday wixii bani'aadanka oo lagu duulaa oo lixdiisa laxaadan waa ka baxsadeen oo malala duugin marka ilaahay aan ka cabsano صح ilaahay aan ka cabsano ku celi numberkaaga marka walaalay 614 804 7361 ku celi mar labaad Soomaali ku shaqadartay 6 614 Soomaaliga ma ku almaantay 6 sideed eber afar صدح تضبط صدح أنا بهالباب لفتي تضبط صدح لحل أفر سديد إبر أفر تضبط صدح لحل وكاش أبكى يزيلك فضلا ولا ليال كسو درا لعقتا وشامي عبدي باكوسو بحيسة هذه لا يكون معي وفسحتها ما كولا شيء قبلنا هذا مياه الله كوي حفظي قال إن شاء الله ما شاء الله أيضا مستقبل في عنا كوسمي would you like to say a word or you going to stay with us have to take her to work. okay so would you like to say a word Eri Madahisa Well, yeah, she wants to say that. Somali about would you share with her the pain about the victim about Yes, the victim was her son, Mohammed. I don't want to get emotional, but
however you can help, donate to the mother. And Ayan, ما هذا كرت هذا الكيبا كحر ماي فضلا عاوية كتري دونت جرية ماما هويان يا school he was a dear neighbor. He was a very, very happy child. Very kind. Always liked to greet people. It's very sad what happened to him. Please donate and help out the victim and his mother and his family. inaan wax u helin waa jecelnahay maxaa la dhahaa cadaalad inuu cadaalad justice. justice we need the justice too. Yes, we need justice as well. You believe that he was, you know, assassinated and stolen by his In a organs? gruesome way. In a gruesome way. He is not an organ donor. He didn't register as an organ donor. Unfortunately, the hospital and the doctors just took all those organs out, and the mother just seen all his organs out of his stomach. In a very painful way, she experienced that. So as a mother, I can't say how hurt she must be. Please help her out, help the community, and bring justice to Mohammed as well as his mom. Jazakallah khair. Thank you very much. That's a beautiful message to the law enforcement, to the courts, to the United States of America, to every human being who is hearing this beautiful message from Asma, who was you know, the neighbor of Muhammad, the victim, and they grow together, mashallah, in this neighborhood. And as you heard, he was very kind, very peaceful man, very intelligent, nice kid, mashallah, who was hoping to have a bright future and to have to become successful in this life. Mashallah, may Allah bless you other. Marka gabadha waxay tiri cadaalad baan u baahnay, in naxariis badan buu ahaa, dariska iyagu ahaa, markastaba salaanta iyo dhoolla cadaynta iyo farxadda, yani fadlan caawiya ilin bay haysay ku tiri hadeertaan. Waxay tiri fadlan u gargaara bal hooyada aan kaalmayno aan u helino walaali other. Thank you Asma, may Allah give you bright future other. Thank you. And mashallah other. may hayso talabka adaa haynaya dadku lacagta halkan ku soo dirayaan may inshallah dhim malahay adu inshallah inshallah fiir adar fiir fadlan numberkii waa kana wali waxba kuma soo dhicin waana numberku waa 614804731 darto siin karnaa numberka dilaasan ugu dhiirigelin saan u dhaano waa ku soo dhacday dad ka maarantid and fadlan ku soo rida walaalayaal lacagta zeelka iyo cash abka labadaba adeer waa nala joogi kartaa you need it okay ku soo dira walaalayaal ya adeer hay okay marka ku soo dira teleefankana ku soo dira walaalayaal ma sha Allah marka hadda aan u baxno waraysiga aan u baxno haya maama soo dhawow maama ayaan iyo maamooyinka kale halkan jooga halkan la soo fariiso halkan soo fariiso qofnaha ka cabsan soo dhawaada waa kana miskiinka alle anoo jooga California ayaad soo wacdeen hadda waa idiin soo gogol fariistay waa ikana soo dhawow xaajiyo marka hore waan dhownahay wallahi aad iyo aad baan u dhownahay waan waa jawaab aragtay inuu waxa nimankii Soomaalida oo kale baan xasuusanaa adaan ku xasuusanay because waxa tahay nin diigle waxa tahay nin warka si fiican u fidiyo waxa tahay dad qofka dadkoo dhan isku wada xidhxidha ee dadka dhiban oo dhan u horbooda tahay cid kale ma aan xasuusan waad aragtay Allah dabca sare baan ku ooyeynay markaanu meesha joognay shan haweenaan oo hay wax ragana maanu arag cidna maanu arag waxa weeyaan saddexdii barkii oo ninkii meesha qabuuruhu wax loog yahayna ku dhiga si walba noocay si walba noo handaday si walba balaay noo ku dhigay wax noo heeliyay iyo wax hareertayda istaagatoona هودي السلام عليكم السلام عليكم واقرت السلام أدرك علي واقرت marka waxaan iska maaragtay soo annagu hadaan haweenahay haweenkii Soomaaliyeed hadaan hay annagu kulay waan u dhibanahay xoog because wadankiina ragu baa naga soo eriyay halkana ragu baa noogu hiilinaynin hadii hooyo ilmo laga qaatay hadii hooyo ilmo uu wata iskuuladii baa xitaa la yaabo yiri way dadkii caruurahan dhala idinkuun baa wada sii wada soo wada haday bukaan iyagun baa wada haday caafimaad qabaan iyagun baa wada haday jeel ku jiraan hooyuun baa socota
markaa rag la-aan markaa waxaban anagu hadda ku tala jirnaa meel jinsiyadda soomaalida lagu maydho inaanu raadsano because soomaalinimadii waxa weeyaan laba cishaa lagu ha lagu hareeraha laga marmarayo wax lagu odhani laakiin waxa weeyaan wax kuu tarayaana ma jirto raggii iyagaa isku jeeda anaa ree hebela anaa ree hebela anaa ree hebel aaw cabdilaahi cabdi timac haddaa ka gabiyey oo yidhi dugsi mala qabyaaladii waxay dumisa mooyaane iyagiibaa waddankiina ku baabiiyey haweenkii soomaaliyeed meel kastay joogaanna ku baabiiyey oon iyagiina nafis u haynin dumarkoodiina naf u haynin marka ilaahayna abuurtaanu leenahay anagu ragba malihiina rabbigii casiiska ahaa ayaanu wanaag ka sugaynaa ragna wanaag kama sugayno inayna kaalmeeyaan kama sugayno inay wax noo qabtaan kama sugayno waxa weeyaan rabbiga raxmaanka ayaan anagu isku xidhaynaa maanta wixii ka dambeeyana marxuumka iyagii halkaasaa lagu qashay lagu googoostay lagu cunay waxa weeyaan inaanu anagu dumar ahaan anaan xaawataa ka noqono community samaysano raggaba taladooda ka baxno taasaan anagu go-aan ku gaarnay community Soomaalida ciidina anaga waxba nooma qaban community Soomaalida anaga community dumarka noqonayna jaaliyadii Soomaalida ee wax u qaban lahayd islaamaheena iyo dadkeena meesha maamul xumaba ka jira dadku wada yacsan yihiin هذا جاليدي ولا بابي جاليد إثيوبيان بانو أهيد قبيلات بلغو بابي صومالي قبيلات بكو بابي سالكا كان إيست أفريكان كوميونيتي ما مقشنا وست هل كان كنت الحافظان كنت لما تقنين إي أسألك يلو آدي شري محارضة إثيوبيان كيدين يجي تاسا وصومالي دي قالوا وانا قالوا دينا ايا اوتري قبيلات با جاليدي لغو بربوريي وحالا يريد إثيوبيان كاس ولا لا هي أفريكان كاس تاني مid baan lahayn oo noordka mid noordka xasan xalay baan la hadlay xasan hooyooyinkana waa kuwaana haddeertaana waraysi inaan la yeeshay ahayd wuxuu yiri anigu intii tabartay awaan dadaalay jifadii wiilka waa u yaray bi ugu jir waxaan u yaray bi culimadiina waa u yaray bi ugu jir culimadii wuxuu ugu yiri waxay aruuriyeen mi ugu yiri 5,000 miya aruuriyeen annaga odayaasha ana 5,000 mar aruurna mi ugu yiri Allahu a'lam saas ma jeclaan ugu yiri lawyer la qabtay ma jira wajiro ayaga qabtay miya inama jufada yarka odayaalkii iyo wadaadadu isaas ugu yiraahday ku maayo si kastaba haateen khalad weyn waa jira horta khalad weyn waa jira oo jaaliyad ma jirto waa la baabi'iyay jaaliyadii Soomaalina halkan way maqlaysaa qabyaalad baa lagu baabi'iyay jaaliyad isku xiran oo Soomaali caawa ما جرتو وطا هويدو سي شيغيسو كلا تاغي تيما عدا يري ديلاي كدمay هدا ماشي حسن ديره هدا Soomaali community qoran tahay asaga kaligiisa dhex fadhiyo wacidu kaligi ba dhex fadhiyo waa laga carar maxaa looga cararay kuwii uu isku qabiilka ayna waa ka carareen kuwii kalena waa ka carareen laakiin saasay tahay inta aan arkay ilaahay baa run jecel inta aan arkay ninka kaliyo la waco hadii argagixisa jirto hadii dhibaato jirto hadii rafaad jirto anu hadda asaga mali yani waa ceeb ka sarin jaaliyadu mali culimaduna mali laakiin culimadiina hadda waa u ceeb asturay culimaduna waa fiican tahay jaaliyadu waa fiican tahay rag waa kulli waa fiican tihiin laakiin maxaa loo baahan yahay maanta isku xirnaan maxaa loo baahan yahay culimada maxaan ka rabnaa marka culimadu waa fiican yihiin okay culimadii waa fiican yihiin war lacagtii masaajidyada taala runta hadii la sheego wax allaala wixii anu aan ku hayay waa kana hadii la kudmaayo 5 kun oo u dambeysay waa kaas waa xoqay hadii la kudmaa hooyan farta ka saar hooyan qabso 5 kun oo dollar wataas masaajidka lacagta taala shiikhow malihid adugu aabahana malahan awowgaana malahan qabiilkaaguna malahan dadkaana leh masaakiinta leh anuguna malihi hooyadaana leh ooyeysa leh agoonta leh musaafirka leh masaakiinta leh kuwa xiran baale kuwa xabsiga ku jira iskale kuwa ilmaha laga qatay baale kuwa gaajaysan baale kuwa korontada bixin waayay baale kuwa kirada bixin waayay baale kuwa aan quraacan baale daac qurmadu dhimateen idan ma ceebaynayno hal qof anu aan wax ka sheegay ma jirto jaaliyad ma jirto qabiil baa lagu baabi'iyay halkan waxa ka jirta SDF SBU SBM SNM SGB SJK باكا جيرته waxa yaraan ka dhaxgalay sheekh dabacsan waxa weeye masaajidada leenahay wadaadaan leenahay ha loo soo gurmado reerkan ha loo soo gurmado wadaadada hadda tihiin uu soo gurmada familkan
dhibaatadan ku dhacday maanta waa iyaga berito waa adiga iyo familygaaga arrintan ku dhacaysa ha loo soo gurmado familigan masaajidada ha loo kaco lacagta ha loo aruuriyo wixii ay u baahan tahay ha loo qabto ila masaajidaduna intaasu waan joogna waa ku tukada sadaqadana waa bixinaa bal familigan ha loo gurmado waryaa islaama alihi ala ha loo soo gurmado familiga waad maqlaysaan ninka odaga oo hadlay waxaan leenahay marka ragow waad fiican tihiin laakiin culumoy masaajid may eryad haystahay culumoy okay hadalkii dhambe noo son hooyo soo dhowow marka hooyo inaad eertay adigu maxaa magacaada run xaqaad afka ka bujisa khayr allah ku sii anna gadaal baan ka qorxiyey ma garad ragaa waa fiican tihiin soomaaliyey hooyadii waa tanaa war waa tanaa walaalayaal hooyo marka maxaad leedahay bal noo waran see wax u dhaceen say wax u dhaceen anigu 2 week baan soconayo masaajidkan maalintii jimcihiisii aan tegay haya waxaan ku iri luulay inankaygii waa la qashay ma noola haya 10 sano 8 sano dhakhtarkan aadayay way soo wici jireen waan ka soo qaadi jiray ama waxay oran jireen 1 hour ago horta waddankan goormaa timaadeen 96 1996 wiilkaaga magacii maxamed cabdi xasan maxamed cabdi xasan meeqa carruur la dhalatay 5 bay ahaayeen asagaa ku 5 3 wiil iyo 2 gabdhood 3 wiil iyo 2 gabdhood 1993 baa timaadeen 96 baa timaadeen halkan 3 jir buu ahaa ha markaan imid caanaha wiigu qaadan jiray markaan imid iskuulka halkan ka bilaabay okay wixiiba waxa isku fuuqsaday ninkii 8 sano dhakhtarka aaday okaadi iskuulka halkan ka bilaabay goor ma xanuunsaday 2013 baa dhibaatadan ku booday see ugu bilaabantay daroogu ku bilaabay maya gaari laga jiitay isagoo fadhiga iska shaqeeya baarteen ayaa gaariga la toogareeyay markaasuu halkaa geedka hoostiisa u fadhiistay tiriinataa baxaysay na maxamed maxaad maanta ku dhacay sidan uu leeyahay madaxa markaasna gaari baa laga jiitay marka waalidana waa iska hiriiriti oo de waa xanuunsanayeen reerku aabihii adeerkiina way u dhinteen waalida marka xanuunkana hiriiritiga waa la iska raacaa inankii yara sidii buu isku buuqay halkii buu xanuunkii ka qaaday wuu socon jiray ma seexan jirin hataa mar intuu halkan ka tagay baan report police sameeyey week baan la'aa report police wuxuu igu yiri markuu ila raadiyay wuxuu yiri mana jeelna kuma jiro mana xidhna okay wiilku marka uu xanuunsanaa daa wax maskaxaan baabuurkii laga qaatay shoogii qacdi uu yiri hiridhitina waa jirto waalidiintiis baa u dhintay khayr allah ku siiyo iskuulka ma aadi jiray markuu toddobaad gaaray way ku Facebook sameeyay uu dhigan waayay way ka fadhiisiyeen sanadkee buu ka tagay iskuulka 2007 baa laga joojiyay yaa laga joojiyay gaaliga ka joojisay waxay raadeen waxba ma dhiganayo ninkan uu soconaya waxba ma qabsanayo guriga lagu baraya daawo ma qaadan jiray maya waanu diiday dawooyinka bariga goor mu bilaabay wuxuu bilaabay de markii uu qacad ay ku dhacday xanuunkani uu maskaxda gaaray goor ma ahayd waxay 2013 markuu xanuunsaday dhakhtarka baaray waxa la wuxuu qabaa exciting anxiety walwalkay walbahaarkay isla hadalkay buufis mareykan ku nool way wada qabaan nacam waa buufis kaadu sax marka inankani 8 sano dhakhtarkan aadayo de malakumeedkiisana waa geeyay dhakhtarkiina intay waayahay iskuulkii dhiganayay daawaduu qabanay ilaa 2013kii ma la xiray hadda ka hor meelo waa la xiray oo gobolada ma aadi jiray gobolada maalinta uu New York laga soo hadlay yiri New York dhakhtar buu ku jiray inankaagi oo gaaru iska raacay cid raacday cid ka hayso war maay dhakhtarkun baa laygu yiri dhakhtar buu ku jiraa maxamed xasan maadaa dhalay ha okay baa leenakaagu wuu buka biyaa ku rakiban masaajid baa u dhawaa masaajidkii bay waceen waxay raadinayeen muslimna